maanta waxaan halkaan ku qabanaynaa shir jaraa'id kulan iskugu yimaadeen kutlada badbaado qaran ee golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugana arrinsanayeen xaaladaha ku soo kordhay siyaasadda Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay isbedelayay iyo sidoo kale marxaladan kala guurka runtii aad iyo aad dhibka badan dalkeena iyo dadkeena maanta ay ku sugan yihiin waxaan halkaan idin kula wadaagi doonaa qodobo ka soo baxay shirkan kutlada badbaado qaran ee golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta ku yeelatay magaalada Muqdisho marka koobaad waxaan soo dhaweynaynaa golaha badbaado qaran oo ah madal u taagan badbaadinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo qabashada doorasho xor iyo xalaal ah sidii dalka ay uga dhici lahayd sidoo kale waxaa maantay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee kutlada badbaado qaran halkan ku saxiixeen petition lagu cadeynayo mowqifka kutlada badbaado qaran iyo sida dalka iyo dadka Soomaaliyeed looga badbaadin karo qatarta ku soo fool kale petition-kan waxaa kaloo ku jira baaqan u dirayno dadka Soomaaliyeed dawladaha iyo hay'adaha dawliga ee daneeya arrimaha Soomaaliya si aan ugu cadeyno qatarta farmaajo ku yahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo qoriga dab kale ee uu la meehanaabayo sidii dalka iyo dadka Soomaaliyeed looga badbaadin lahaa fidnada hormuudka uu ka yahay ee la doonayo dalka in dib loogu celiyana la iskaga kaashan lahaa sidii looga hor istaagi lahaa sidoo kale waxaan baaqanagan ku cadeynay ama ku cadeynaynaa ugana digaynaa saraakiisha farmaajo uu adeegsanayo burburinta dalka iyo adeegsiga awoodda ciidan ee baalmarsan shuruucda dalka iyo hay'adaha dimuqraadiga ah ee curdunka ee dalka Soomaaliya kaana qaaday muddooyinkii la soo dhaafay waxaan leenahay nimaan idin furi doonin iyo idin rarin dambiga aad ka gashiin dalka iyo dadka Soomaaliyeed berita adinka ayaa la idin kula xisaabtami doonaa ee farmaajo idin kama difaaci doon waxaan sidoo kale halkan ka cadeynaynaa oo kutladu ka cadeynaysa inaanan aqbalaynin muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dawladda ee farmaajo u gadaal ka riixay doorashadana uu ku diidan yahay waxaanan uga digaynaa guddoonka baarlamaanka federaalka inaan dalkan lagu dumin gacmahooda mana shaqayn doonteen waxaan idin leenahay qayb iyo foolxumo ummadda Soomaaliyeed idinkuna u soo jeedinina dalka iyo dadkana qayb aysan ka soo waaqsi karin gorodda u gelinina ayaan idin leenahay ee walaalayaalow dalka u tura dastuurka u hoggaansama haddii aad ka shaqaynaysiin sidii loo tabantaabi lahaa ama dadka la isku keeni lahaa mas'uuliyaddeeda qayb inaad ka qaadatiin laakiin aadnan hormuud ka noqonin fitno dalka iyo dadka Soomaaliyeed lagu duminayo aad iyo aad u mahadsantiin Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier